ninkugu dheer dunida Suldaan Kuusen. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Daawadayaasha kanaalka Ogaalow muuqaalka kooban maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ninkugu dheer dunida iyo taariikhdiisa kooban. Wuxuu galay buugga decoding-ka buuggaas oo lagu qoro dhacdooyinka caalamka kuwooda ugu cajiibsan. Waxaa lagu qoraa dadka jibiya recording-ka iyo weliba cidda record cusub samaysa. Asaga ma ahan qof record cusub dhigay wuxuu record jibiyay dhererkiisu aad xad dhaaf u ahaa. Wuxuu record ka jibiyay 6 asaga kasii horeysay. Asaga waa qofkii toddobaad ee ugu dheer caalamka. Aan horey u galno kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Suldaan Kuusen waxa uu dhashay 1982 waxa uu ku dhashay magaalada Mardaan ee dalka Turkiga. Ninkan waxa uu caan ku noqday ayaa ahayd in dhererkiisu aad ka xad dhaaf u ahaa dadka ka duway oo dadka soocay. Agosto 2009 ayuu World Recording-ku u aqoonsatay inuu yahay qofka ugu dheer dunida. Suldaan ilaa uu kasoo gaaray da'da 7 sano si caadi ayuu u korayay, balse waxa intaa ka dambeeyay ayuu jirkiisa bilaabay koriin degdeg ah kaasoo ku dhaafay dadkii asaga ka waaweynaa. Suldaan wuxuu ciyaari jiray kubadda kolayga, balse korinkiisa aadka u darnaa awgiis ayuu u ciyaari waayay kubadda kolayga, taasoo khasabtay inuu si toos u socon waayo una baahdo caawimaad dheeri ah sida ushan hortanada ka muuqdo ee loo yaqaan bakoorad ama bakoorta, ama laga yaabay inaad magac kale aad u taqaano. Cudurkaas la soo darsay awgiis uma suurtagelin inuu si dhammaysto sii wato daraasadiisa, riyadiisana umana aysan rumoobin. Balse World Recording-ka ayaa 2 jeer diiwaan gelisay. Mar waa dhererkiisu ahaa 2.51 mitir ama 251 centimeters, marna waa inuu ahaa qofka ugu gacmaha waaweyn dunida. Muuqaalkeena maanta uga hadlaynay qofka ugu dheer dunida mid ka mid ah dadka kale buugga World Recording-ka ama Genius World Recording-ka. Halkan ayaa ka keenaynaa waxaan isla soo gaarnay gabagabada mawduuceena maanta. intaynu markaa kulmayno waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah.